الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم وأوصيكم ونفسي بالتقوى الله فإنها خير ما يتصف به العبد وخير ما يتزود إلى يوم المعاد ولا الليال وحين كهد الدون إن شاء الله dhibaatooyinka maanta jira ee caalamku aad uga qayliyay waxyaabaha aynu kaga hortagayno fi manduurin diini wa islaami inagoo ka eegayna dhinaca diinta iyo waxayna fartay wax kasto dhacaba islaamku waxba ku xaliyay waana waxa u wanaagsan waxaynu kaga hortagaynaa ugu horeeya addu'a toddobadan qodob baynu tirin doonaa waxa ugu horeeya addu'a inaynu ilaahay barino subhanahu wa ta'ala قالوا أودهم بيسبدان لكن إلهي ما بريان بريا قالنا لما أقبله رسولك صلى الله عليه وسلم استقوا دعاء ينقوانين يمركا وحدعان وحولي حديث أحمد ورني حسن كاها لا يرد القدر إلا الدعاء أو لا يرد القدر إلا بالدعاء قدر كالدعاء بلغوه رجوك سده أنا الدعاء نوى قدران تهاي وحي صور عينه وقدران هاي لبدا سؤال هاي سكر ريبيا وحقدر كإلهي كبحا مجرو حديث كرا حاكم موريني من حديث عائشة حسنة رسولك وحول صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل دعاء بلايا صوت دكتين وحبي كترتا بلايا صوص عطنا وحبي كترتا وإن الدعاء لا ينزل وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة بلا إذا صوصعت أي الدعاء إيا ربي بارك كهرتقاه إلى قيامة انت لقى قاريانا وإسلال لبن لك ديستا فكادي الدعاء حوق بدنت ويكحوق بدنت وانت بلا يده وحينو كهرتقاه ناس دعوين كاس ونبي نوتش دي صلى الله عليه وسلم دعوين كنبي نبريبا وغفض لبضن taasoo ilaahay uu baryayo wixii khayraha doomuha ay haystaan inuu ilaahay u daayo wixii balaayana ka duwo Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik du'ooyinkii nabiga kaleey salaatu wassalaam ilaahay waxaanu ka magan galaynaa inaad nicmada naga qaado caafimaadkana aad naga qaado balaayadana aad nagu rido intaaba waa ka magan galaynaa min zawali ni'matika wa tahawuli aafiyatika wa fujaati niqmatik إلهو نعمة النودة وعافماتك النودة وبلايا كديس كان نقد القاد وحكود عيساني رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام والذا إيا برص إيا عذر كالجذام كالله إيا عذر هذا حنحنبا إلهو كان مقنقلينا بك دعوين كوارد كي رسولك كسوء ريبا سرت حنبارس وحال بعض إنك كهرتقينا الصدقة inaynu deeqda bixino dadkana waqtiyadan la kala xidhay busaarada ku badan iyo baahidee qof waliba wixii uu dhiibi karo uu bixiyo sidaas uu nabaray nabigu kaleey salaatu wassalaam xadiis bukhari iyo muslim ku sugan ayaa wuxuu nabigu ku cadeeyay maalintii qorraxdu ay madoobaatay oo dee waa musiibooyinkii dhacay caalamka ku soo kordhay waxa uu yiri fa idha ra'aytum dhalika fad'u allaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu marka arrimahan oo kala aragtaan waaweyn caalamka ku soo biiray balaayoyinka ah ilaahay bariya allahu akbar tabadiya salaada tukada sadaqadana bixiya Anas ibn Malik oo xakayntii nabiga sallallahu alayhi wasallam rasuulku gacantiisa ku tababaray waxa uu baakiru bi sadaqati fa inna al-balaa la yatakhatta sadaqa bayhaqi ba warinaya waa athar sugan weey laka allaha sadaqadoo la degdega balaayadu kama soo tallaabsato sadaqada oo kama soo dulboode waa dhagax ilaahay uu ku joojiyo culimadu waxay leeyihiin xataa qofka gaalka ah laftiisa deenu ilaahay kaga difaacayo waa laga fahmi karaa xadiidka wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wassalaam laba malag inay maalin walba soo degayaan oo midin waa ducayeel دعوا لتاغين اللهم أعد اللهم أعد منفقا خلفا إلهو كوحبحية بدل سيب لي ككلنا هبار بولا تاغين وحلا اللهم أعد ممسكا تلف إلهو قفك وحي سيسكها تلف سي
talafku waa dhimasho xoolaha ka dhiman kara naftiisa dhiman karta ehelka ka dhimanaya waa habaar 500 ha ahaato 1000 ha ahaado koob shaahana ha ahaadee habaarka malaga inaynu wuxuun kaga fakanaa fiican waxa uu kaluu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cudurka laftiisu markuu yimaado waxyaabo ilaahay ku qaaday inay ka mid tahay sadaqadu daawu mardaakum bisadaqa atharka xasanka ama xadiidka xasanka saasuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam dadkiina buka ku daweeya sadaqada marka ka hortag iyo ka dabatag labadaba inay sadaqadii noqon karto ku cadeeyay xadiidka rasuulku waxyaabo aynu kaga hortagayna waxa kamid ah shukru nicma والصبر على البلاء قفك أما ودبي أما داف بو هيستا مركو برواقي خير هيست إنه إلهي أمهدنقو سبحانه وتعالى مدركي با إلهي نوشوي أبارتي وإنك إلاليي مركا وإن إنه إلهي أمهدنقنا إن بدن ربي سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم بإلهي بلن قادر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي وحب بلن قادر وقيسي haddii ay mahadnaqdaan waan kordhinaya caafimaadkan kordhinaya xoolahan kordhinaya roobkan kordhinaya wala in kafartum min adaabi la shadid haddii nicmada ka gaalowdaan oo ku mahadnaqi weydaan cadaabkaygu wuu daray cadaabka cudurrada adaga caamkaaba ka mid ah waxa aynu kaga hortagaynaa ama ku waajahaynaa inaynu ka faa'iidaysano waqtiga faraha badan aynu haysano الفراغ dadkii waa la wada xareeyay Soomaa maxay dadku yeelayaan miyay iska ciyaarayaan miyay majaajileynayaan dad badan baa waxay ka dhigteen ba cudurkan iyo waxan dhacay waxay ka xaraabaadsadaan ama ka riwaadsadaan qaar sida digaaga waciyay arkaysa qaar guryaha dhexdooda ku maadeynaya arkaysa markaad eegtan barahan bulshada iyo meelaha wax laga eego waqti aad u fara badan buu qofkii helay oo laga yaabo inaanay isu helin isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisa waqtiga waa in looga faa'iideeyaa maxaa adduun iyo aakhira badan inoo ah sida loo cibaadaysanayo sida cilmiga loo kororsanayo sida aqoonta kor loogu qaadayo sida ubadka loo rabaynayo waqtiga dadku shaqooyinkii laga fasaxay waxbarashadii laga fasaxay waa nicmo qaali ah oo laga yaabo markaad mashquulsanayd inaanad haysanin talooyinku nabigu nasiinayna wuxuu ahaa wa faraaqaka qabla shughlik وصحتك قبل سقمي انت انا عذر كوغو دحين عافيمادك كفايديسو انت انا مشغول فراغ iyo chance ka faa'iideyso marka taasina nicmooyinka kamid ah waqtiga in lagu buuxiyo wax qiimo badan oo ciyaarta laga daayo iyo riwaayada iyo bilaa macnaha iyo haasaawaha iyo dambiga waxaynu kaga faa'iideysanaynaa inaynu soonno bishan Shacbaan oo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu soomi jiray soonkeeduna waxa uu ka mid yahay soomamka ugu fadli badan sunnayaasha axaadiidta saxiixaynka waxa ay tilmaamayaan oo Caaisha leedahay kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan in yar mooyaane bisha shacbaan nabi maxamed uu wada soomi jiray wamaa ra'aytu akthara siyaaman minhu fi shacbaan bishu ugu soom badnaa nabi maxamed bilaha sanadkoo dhan marka la isku daro shacbaan bay ahayd ramadaan marka laga reebo أسامة بن زيد أصحابي لورنا يبا ويدي النبي قال وحول بيشن صوم كأد بعض بديسا شعبانه محاكو سوكر داي وحول النبي وكسب صلى الله عليه وسلم بيشن وبال أيدتكو قفلتك قصو جيهين أما أنا آدو الدرين سنين صوم كيدو فضل قولي وبالو دحيسا بليه حرمض الهامد كمدا ورجبه يا رمضان marka rajabna waa loo dadaalaa ramadaanna waa loo dadaalaa bishan bay dadku marka qaflad ka galaano markaasaan doonayaa qafladda inaan dadka ka baraarujiyo marka aad buu badin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam bishan soomkeeda waxa kaloo tilmaamay camalka adoomahana in ilaahay la gaarsiiyo loo kor qaado waxa ku jirta bay culimadu leeyihiin xigmado dhowra oo nabigu soomeeyay sallallahu alayhi wasallam bishan Shacbaan si aynu uga faa'iideysano xigmadaha waxa kamid ahaa xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam intii soomku uu ka tagay soomku uu ka dib dhacay qalihi bishan Shacbaan bay soo qalayn jireen sida xadiidka saxiixa ah Caaisha ku tilmaantay soomka wixii iga tagay ramadaan hore dhaafay waqtiga aanay daahirka ahayn iyo waxaan soo qalayn jiray Shacbaan marka si uu nabigu ula dadaalo xaasaskiisa isaguna sunnu soomaya iyaguna qalihi bay soomayaan
soomkaasi xikmadaha ku jira waxaa ka mid ahaa sidaa xadiidka hore usaamaba uu soo sheegay si uu qafladda uga baraarujiyo nebigu iyo cibaadada ay warla-aanta kaga sugnaanayaan. xikmadaha waxaa ka mid a sida xadiidkaasi uu caddaynayo waa waqti camalka iyo warbixinta malaa'igtu ilaahay ay gaadhsiiyaan oo camalkii addoomaha la rafciyo. marka waxaan jecelahay buu nebigu camalkayga in ilaahay loo gudbiyo anigoo sooman. xikmadaha waxaa ka mid a waa ka tamriini calaa siyaami ramadaan. waxaa loo sii tababaranayaa bishii ramadaane soo socotay oo qofku had iyo jeer hadduu hawl adag qabanayo loo tababaro ama dagaal uu galayo oo carbis fiican la siiyo hawshaas si fiican buu u qabtaa, uu ku xaragoodaa. markaa qofkii shacbaan la soo qabsaday soomka ramadaanna way u sahlanaanaysa. xikmadaha waxaa ka mid a waa ixyaau sunnatin mahjuura, sunno dadku ay ka tegeen oo lasoo noolaynayo. nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam waxa uu xusay xadiidkii saxiixaa sunno dadku ay ka tegeen qofka soo nooleeya waxa uu leeyahay ciddii kaga dayatay ajrigooda intay heleen in la-eg. waxaynu dhibaatooyinkan ku waajahaynaa biliimaani bilqadari waatawakuli cala allahi tacaala. waxaynu rumaysannahay wixii dhacaaba inaanu iska dhicin, laakiin qadar ilaahay uu ku yimi. marka waa ku qanacsannahay qadarkaa ilaahay u qaadan waa inagu dhici maayo. waxaad arkaysaa gaaladiioo fooqyada iska daadinaya, qaarkoodoo isdilaya, qaarkoodoo isgubaya, qadarkaanay rumaysnayn. ilaahayna waynu tala saaranaynaa subxaanahu wa tacaala. labada arrimoodba ilaahay aayaddan buu ku wada tilmaamay, xayثu qaal qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun. waxaana soo gaari kara uun wuxuu ilaahay noo qadaray. dadka alla yaqaankiina ee ilaahay rumaysanna allaha tala saartaan oo arrimahooda ilaahay u dhibtaan. waxaynu kaga hortegaynaa arujuucu waatadarucu ila allahi tacaala. wax kastooo dhaca ilaahay wuxuu inaga doonayaa inaynu soo noqono, aynu baraarugno. dadku xumaantiibay kullibdheenay ku fogaadeen. marka waxaa loo baraarujinayaa inay dib u soo laabtaanay baraarugaan. ka gaalkii toobadkeenu islaamo, ka caasigii ilaahay caabuda subxaanahu wa tacaala, kii xumaanta ku jira ee uu ka baxo. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بدي يبر ببلايا يسبح ليبا إلى هول دنبي قيدتكو قلين أيا وحا كيمي عذر رضا يا عبسدا يا عريري بدن الدتك هايست يا بسارد وحا الله وحا هايستولا من بلايا دا أي دتكو السمايين يا معسيدو كل شيء إلى هول. بركا إلى هينا دبكا وحو يقول هذا لعلهم يرجعون سي أوصى نغضان وآيو توبت كينان. waxa aynu arrimahan kaga hortegaynaa akhdu lasbaabi lilwiqaaya. ilaahay waynu qadarkiisa rumaynay, waynu tala saarannay, laakiin laa natawaakal, isdhigan mayno oo odhan mayna ilaahay baynu tala saarannay wax walba aan samayno ma yeelayna ee wixii sharcigu ina farayna waa yeelayna ay ka mid tahay sababaha ka hortagana inaynu samayno. horena waynu soo sharaxnay oo khudbadihii horena waynu kaga soo hadalnay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha noocana kaga hortegi jiray iyo dhibaatooyinka wax alla wixii caafimaad ahaan xal u noqonaya dadka, ka hortagga iyo daaweynta intaba in iyadana aynu ku dadaalo. marar badan a idaacadaha ka dhagaysataana la idiin sharxayo. waxaa ugu dambayntii nataa'ij, waxaa natiij ahaan arrimahan uga soo baxay aynu arkayno ee caalamka ka muuqanaya ana alumuura biyadi illaahi tacaala. arrimahoo dhami dhib iyo dheef bayna ilaahay gacantiisa ku jiraan. oo dadkii odhan jiray awood baanu leenahay iyo dowladihii faani jiray ummadu xaggooda ay eegi jireen itaaldarradoodiibaa inoo muuqatay. wa khuliqa alinsaanu daciif. waxaynu maqlayna madaxweynaha talyaaniga gacmuhu kor u taago waxa uu leeyahay arrinku dhulkii wuu ka dhammaaday, xagga sarea laga warsugayaa. dadkii muslimkaee masaajidada inay ku tukadaan loo diiday baa la shaariciyada ku tukada bannaanada oo balin wuxuun laydinka aqbalo ilaahay noo baryaday leeyihin. annaga dawadayadii iyo ogsajiintayadii iyo waxagayagii u dhammaaday, cirkaynu jawaab ka sugaynaa buu ku leeyahay. dee waxay ahayd inuu ilaahay rumeeyo subxaana wa tacaala markuu dacfigiisa qirtay. waxay noo arrintanina xusuusinaysaa nataa'ijka ka mid a aakhiro iyo qiyaamaha. yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yugniih. waa la kala yaacay.
waa dadka intii kugu dhaweyd baad ka cararaysa ubadkaagii ooridaadii ehelkii ayuu qofku ka cararaya qof walba arrin ku filan baa helay waxay wasaa'ilul iclaam aynu maalmahan ku arkeen in dhakhtaraa wuxuu ihi aad buu qalbigayga u damqay dhacdada iga soo martay buu dhakhtarka oo dhakhtar faransiis oo gaala nin odayaa wuxuu jiifay buuhi cusbatalka iyaga markay naftii qabatee uu sii dhimanaya ayaa wuxuu ihi carruurtayda dabadda joogta bal ilbiqsiyadii u dambeeyey aan isa si aragna iigu yeedh waan ugu yeedho waxaa idhi buuhi aabbihiin wuu dhimanayaa nabadgeliyey waxay yidhaahdeen mee waanu ka qaadaynaa cudurka ha iska dhintee u sheeg inaanaan u soo geli karayn sidii baan ayay kaga joogsadeen ay kaga baqdeen buuri macnaa aabbahoodoo dhimanaya eegi kari waayeen oo ay ka carareen waxaynu uga faa'idaysanaynaa arrimahan ama nataa'ijka ka soo baxay ay tahay inaynu ka faa'idaysano xaaladdii timaadaba islaamka waa looga faa'iideeyaa markaa dadku marka daciifnimadooda ay muuqatay arrinkii inuu ilaahay ku ururay u caddaatay qofka gaalag joogaana waa inuu